okay kow waxaan ka hadlaynaa halka shay ee noloshaada haddaa bartid adigoo dhan waxaa noqonaysaa insaan nidaam leh oo horumar leh. tan most important lesson oo noloshaada anfacaya waa haddaa yarta haddaa weynta age kasta uu ku anfacaya. marka dhageyso hadalka soo socdo. bani aadamku waa 3 waqti: shalay, maantay iyo berri. shalay dadka istaagsan way ahaa, waa laygu sameeyey, waa layga tegay, ilmaha kana, ayaga kana. bini aadankaas shaluu ku nool yahay, shalana weligeed ma soo laabanayso. maantay oo ah midda ugu importantsan oo naftaada inaad bartid tahay, waa in aad naftaada ku broganaysid maanta ma caafimaad qabaa, maanta xaalkaygu suu yahay, maanta maxaa ii suurtagala. 24 sac ee nooshahay waa midda keliya la hubo. berri although aan la hubin inaad joogi doontid, laakiin qabashada maanta ayay u egtahay. qof maanta dayacay ee wuxuu rabo isku sameeyey ee maaragtay balwad u fariistay oo wuxuu rabo qasay, berri marka hadduu qofku tabasho keliya taagan yahay oo shala ah, ay maantiisu ay ku dhammaato tabasho shalay ah ku dhammaato, maantana waxba kuma samaysan oo taankii la huba ah, berrina laba hubo oo murugadan keliya berri la tegi doonaa asoo kasii daciifsan, kasii foolxumo badan, kasii shalayto badan. laakiin maanta haddaa dhahdid si kastay nafta u xanuunsanayso, sharciyada ilaahay looma keenin cabath. ilaahay iyo diintii uu noo keeno maxay u leedahay? waman cafaafa wa aslaxa faajruhu cala allah, faajruhu cala allah. markaa qofka uu wax cafiyo uu tii ilaahay subxaana watacaala gacanta ilaahay wax gashto, faajruhu cala allah, ilaahay yaa ku leedahay taas. maaha qofka wax kugu sameeyey, kaas waa lagaa kormarinaa, meel saraa gaari, wax qabadaa yeelani, maantana way kuu hagaagtay. shala xanuunkeedana farduusuu ilaahay kugu bedelaa. gacan ilaahay, silcat illaahi alghaaliya ku jirta. fardows iyo dhibaato dhan iyo waxaasoo dhan aragtida keliya halka mar aragti ku iloobaysid. marka murugo, marka cashirka ugu weyn waxaa waa let go. xanuun kasto 6 ma kaamil ba? yes. caqligaaga kaamil miya? diintaada maa dhibaato kaa soo gaartay? waxyaabaha nagu dhacaya waa cashiro naga dhigaayo inaan stronger noqono. imtixaan kasto cabath kuguma imaanin, sabab buu kugu yimiday. isweydii intaa individualka ku mashquuli lahayd, qofkan wax kugu sameeyey ama dhibaatada kugula dhacday imtixaankiisoo qaba ha socdo, yahiimu calaa wajhi hadduu rabo. asiga maaragtay mawaaqifta isku xir, ashqaasta isku xirin. mowqifkii ahaaday joysaa leedahay oo hayso, ajir u bedelo, horumar u bedelo, ilaahay agtiisa dhig. laakiin ha ka dhigin maaragtay qafas yar ood adigu isku xirtay oo furihiisidna aad tuurto. markii la qofaskan maxaa ugu xirantahay? saasaan u dhibaytaysanaho saanaysaana laygu sameeyo, kan iyo kanay tahay. marka murugada daa'imka ah waa choice, adiga choice garaysatay. qof aanan xanuunsanayn male, qof aanan dhibaato daa'ima ku jirin male. laakiin raganimada iyo mataqaanaa naagnimada iyo waxa lagu sheegaya iyo wanaagga waxay tahay qofbaa wuxuu choose garaystay xanuunkiisa asoo og yaa rabbi inuu dhaho oo wax ka qabto, maalintiisa u macaato, oo ilmihiisa wax u qabsado, uu maaragtay qadartiisa uu duco ku bedelo. ilaahay tog inaa ilaahay wax weydiisatay, lacag may ku fadhidaa. ilaahay wuxuu dhaha xablil wariidan kaaga dhawa, waa xididka weynoo jig dhahaa. hadda maanta yaa rabbi dhahda, ilaahay yaa cabdiyo ku dhahaa, yaa kaa xigo. awood, wax kasta awooddaa kuu jawaabtay. adduunka dhan iyo aakhiradiisa ilaahay lahayaa kuu jawaabay. yaa u baahan tahay marka adu markaad daciif iska dhigtid, aad a narrow place wax ka aragtid, hal focus. ilaahay haddaa dhahda ninkaasaa waxay siin jiray, hadduu tagay maaragta waxba ma haysto, waxna ma awoodno, waxna ma haysano. adaa awoodda ilaahay xadiday. meeshaas aad fiirisaa ilaahay subxaana watacaala kuga imtixaanaya. alrazaaqu dhuraxma. marka qof kasta wuxuu dhahayaa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, yaa ilaahay subxaana watacaala aan ku aqaanaa tan. ilaahay subxaana watacaala ay badbaadinayo, ilaaha isiinayo, ilaaha kan ilaaha kaas kan dhaho, noloshiisa immediately isbedelaysaa. malik ay ku xiran tahay. laakiin shaqadii hebelaa layga soo buriyey, risqi kalama aaminsanid aan meeshaas ahayn. baabuurkan ku shaqaysanayaa iga jabay, hebelaa shaqadiisa saan yeelay, heblaayaa kan yeeshay. adigu adaa isxayiray, ilaahay kuma xayirin. ilaahay qofkii ka baqo oo maanta dhan u laalaabta oo dembigiisa iska tirtira, maaragtay man yattaqi llaah yajcal lahu maqraja. ma lagu wey hawada hadduu rabo ilaahay hawadu furaa, lagaana ma tashanaayo. marka xayiraada ma aday kaa socotaa oo qafasa inaa isku xirtay aan musiibooyinka kugu dhaca keliyaa tirisaa. 5 sano haddii lagu soo laabto, 5tii sano waxaa leedahay saasaa berigii dhacday, kanaa dhacday, meeshaasay wax iga soo gaareenba. waa lay xayiray, waa laygu sameeyey, waa lay sixray, waa lay ilaystay. waa qafasyo adigu aad isku xiraysid. yaa rabbi haddaad tiraahid oo meligii la xidhiirtidna
marka hadda maxaa sugaysaa yaa rabbi dheh laba ragcad ku weesa qaado hadda aan videogan fiirsanaysid nolosha wax ka bedel fiiri culeysyada kaa dhaco markaa labada ragca ka baxday laba ragco sunnaa caadi dego xale ilaahu rabbi raxmaano cabdigaagaan ahay intaan iyo intaana inaan qaldaan umaleynaa qaladii badan oo iga ahaadana waa iloobe anna waa leego xadgudba ha iska dhigin malaa'ig iyada uun maaragta wax lagu sameeyey ama asiga uun wax lagu sameeyey bani aadanku waa sida traffic oo kale waa isku dhacayaan kuwa isbiida kuwa kala waaweyn baabuurtii u kala waaweyn yihiin waxba taasaa tirinin ilaahay u jeesay waxaa dhada ilaahu albaaba hawada iyo albaaba dhulka iyo albaaba cirka iyo wanaagga ila jeceshahay ilaahu ii fur oo qof kuu xamdiyoon ummadda baaba ka dhigan iga dhig oo berri faana marka maanta ka fikir iyo maxaa qaban kartaa iyo maxaa tooba keeni kartaa iyo maxaa cafin kartaa fiir berri si u qurxanaato laina maanta maximum benefit qaadatay benefitka bani aadanka qaata kan ugu weynaa maanta qaadatay marka nafta been ha u sheegin qof ayna xumaan ku dhacaynin male marka sheekadan ka bax iyo qiila waqaale iyo waa la yiri ka bax dadka qaarkood oo murugadaada kaala sheekaystaanna waxay kuu tarooyaan male maanta dhan shalay kaala sheekeyna masaasuu kugu sameeyey masaanay yiriheen masaanaa lagu dhacay qofka ku dhahaayo wax faa'iida uu leeyahay male qofka kac ku dhahaayo war saan samee war inta waxaan kari war kan yeel sacyi baa loo baahan yahay adduunka inaad dhaqaaqdid ilaahuma fikirkaaga ku dhaqaaqdid ilaahuma ducadaada ku dhaqaaqdid wax uun qabo ma xayirnid lixdaada lixaad hataa dee wax kaa soo qaareen qalbiga iyo maskaxda kama xayirnid ilaahay lama sheekaysan waayen marka yaa rabbi dheh xaaladda maanta ku haysata wax ka bedel su-aalahoo dhan way badan yihiin jawaabtuna un waa hal maanta maxaan qaban karaa maxaa ilaahay weydiisan karaa maxaan ka tooba keeni karaa maxaa iidana kan maalintiisa wax ka qabtana future qurux badanaa sugaaya ilaahay cataagiisa waa weyn yahay dhaqaaq waa la yiri iyo way tiri iyo maarad darishada iyo inaad kortid nimanka Soomaaliyeed hees ah haddii maanta dhan nimanka Soomaaliyeed inaagaha Soomaaliyeed wax laga sheegayo xalkee la ii keenay wax xaloo la ii keenay male qofkaas buuqi hayo ugula sii buuqay wuu tagay marka anaga yaa noqonin mujtamac buuqa oo hadal sheega mujtamac xuluul la yimaada xal maxaa ii xala bila sheerta qaadato laakiin toward ina anigu noqdo bini aadan fiican aan ku socdaa waa bilaabay duca ka bilow dhaqaaq ka bilow xanuunku waa kii maaragtay isa soo xasuusiya shaydaanku waa meeshii aa ka raysanaysa kii taabta alxamdulilaahi dheh shalay imaanta oo maanta ii qurux berrina way kasii qurxanaani mutafaa'il noqo qoraxda aday kuu soo baxday adduunyada daraadda ay u wareegsanaysaa timekuna hadduu tago sooma laabto daqiiqadii haddana dhaafta ma soo laabanayso marka daqiiqadahaadu xamdi iyo shukri iyo cafw ha ku baxaan ee fiiri adduunya meesha ka gaartid meel sare oo socota inna maca alcusri yusr say bismillah maanta wax ka bedel